markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal shaki kuma jiro ereyada af soomaaliga intooda badani inay ka soo jeedaan miyiga iyo dhaqankii laga yaqiin dadkuna qayb ahaan markuu reer magaaloobay ereyadaas lagama maarmine waa lala soo guuray maantana iyada oo tiro yari ay asalkooda u warhayso ayaa lagu hadlaa qaar ka midihii ku tashay la'aan bay waa hore afka reer magaalka ugu soo biireen si ula kac ah ayaa qaar kalena loo soo geliyey taa dambana waxaa lib iyo gallad loogu hayaa guddigii af soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada ee soomaaliya guyaashii 1970 warbaahinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka nabad sugidda iyo maamul maalmeedka dowladeed intaba waxaa dafka ah erayo afkii miyiga ku sal leh kuwaasoo macno cusub oo kuwoodii hore aad u salsallaaba loo xambaariyey kadibna loogu wada bartay dhabtii adeegsiga erayadaasi afka way u roon tahay maxaa yeelay inay dhintaan ayay kaga badbaadaan hase ahaatee mararka qaarkood adeegsigooda habboon dhallinyarada warbaahintu way ka ilduuftaa iyaga oo la maqlay si aan loo fiirsan baa wararka lagu darsadaa markaas baa la garan waayaa qofka wax ku tabinayaa fariinta uu gudbinayaa meesha ay u jeedda iyo waxa ay daaran tahay erayadaas waxaa ka mida biyadiid oo ah erey dhaqanka xoolaha ka soo jeeda isla markaasna ku jira qaar waayadan ku soo noqnoqda wararka iyo faallooyinka warbaahinta af soomaaliga ku hadasha goor habeena ayaa waxaan dhegaystay weriye ka soo warramaya arrin markaas uu murankeedu nairobi ka ognaa kuna saabsanayd xildhibaan reer kenya ah oo mid kale oo wasiir isla dalkaas ah si uun u aflagaadeeyey dabadeedna wasiirkii loo gafay ayay telefishinada qaarkood meel fagaara ah ku waraysteen markaas buu sheegay inuu diyaar u yahay xildhibaanka inuu cafiyo haddii uu si caddaana ugu cudur daarto haddii kalena uu qareenkiisa ku amri doono in si rasmi ah uu maxkamadda uga dacweeyo weriyihii dhacdadaa tabinayay ayaa wuxuu warkii ku soo gebagabeeyey arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii hebel uu ka biyo diido aflagaadadii uu hebel u geystay inuu ka raalligeliyo weedhu ma xuma siduu weriyuhu u adeegsadayna aad uma liidato waase laga fiican yahay haddii aad ereyga raad raacdo waxaad sidaan soo sheegay ogaanaysaa inuu yahay erey ka soo jeeda soomaalida miyigu dabeecad ay xoolaha qaarkood ku taqaan gaar ahaan ishkinka oo geela iyo lo'da lagu magacaabo balaan faahfaahiyo tusaale ahaan geel maalmo badan oo manaa ayaa inta la soo arooriyo ceesha la keenaa darkii ama qabaalkii loo siday baa loo buuxiyaa markaas buu dudubiyaa ilaa uu ka oombaxo hase ahaatee isla geelaas baa waxaa mararka qaarkood lagu dhex arkaa hal aan sida kuwa kale biyaha u cabbaynoo mar afka la aadaysa marna kala soo noqonaysa maxaa ugu wacan haddaad isleedahayna jawaabtu waxay tahay waxaysan dulqaad u lahayn waxa geela kale uu dulqaad u leeyahay waxay diidaysaa mirif yar ama wax la too ah oo ay biyaha ku dhex aragtay markaas bay geeltiruhu way yaqaaniine uga soo bixiyaan dabadeedna darka ku duwaan markaas bay sida inta kale ay iyaduna biyaha sabarrada uga buuxsataa hashaas iyo kuwa la'anshiga ah ayaa biyadiid lagu magacaabaa sida muuqatana waa diidmo aan sii ridnayn aan sabab weyn lahayn wax yar kadibna laga soo noqdo ereygaas biyadiid ayaa haddaba waxaan ku arkay ku dhowaad 80 sano muddo haatan laga joogo gabay uu tiriyey
allaha u naxariistay maanseyahankii weynaa ee samatar baxnaan la odhan jiray. waxay ahayd seben colaado ba'an la soo maray, seben reer miyiga waqooyigu ay u kala hayaameen meelo aad uga durugsan kuwii ay degi jireen, iyaga oo ka cabsanaya ciidamadii gumaysiga ingiriiska ee dalka ka talinayay inay geela ka moora duugaan sababo kala duwan awgood. xoolo doora ayaa ku lumay kaynaankii iyo kala yaacii waayadaas, qoysaska ku xantiirayna ma yarayn. berigaas ayuu samatar geeloodii ku mintiday oo col iyo baylahba uu kaga gadaanaaday. beri dambe oo colaadihii inta laga soo doogay la yara xasilay ayuu gebiyey. wuxuu ku faanay wixii dad ay xoolo ka lumeen in haasahaasihii uu isagu qaalin qura ku waayey. waa gabay uu ku qeexayo siyaaraha ugu wanaagsan ee geela loo dhaqo iyo daryeelkiisa dhibta badan ee laga maro. wuxuu tilmaam faahfaahsan inaga siinayaa sida kolba daaq ahaan meeshii u roon uu isagu ugu foofiyo, siduu u arooriyo ee markuu oomo uu u waraabiyo, siduu xeryaha ugu dhigo ee uu bahalka uga dhowro, siduu uga ilaaliyo tuugga raba inuu xado iyo cadowga inuu qaado doonaya. gabaygaas oo dheer qayb ka mid ah ayuu samatar inoogu qeexayaa siduu yeelo geeliisa habeenka uu aroorka u diyaarinayo iyo maalmaha inta ceelka la geeyo laga shubayo, halkaasoo ereyga biyodiidku uu ku jiro. wuxuu yidhi, iyadoo cishaha loo saftaan dhir u suryeeyaaye sumucaan awaaraha dhigtaa, samac idhaahdaaye saadaasha waagoo bariyey, baan soo candiriyaaye sannad iyo barbay soo dhaxdaa say sodcaal tahay. subaxii dambeetaha nugaal laga salaamaaye ceel baan sallaan kaalimeed uga sameeyaaye sabada u bannaan baan tubaa sawdka celiyaaye. qayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkiisiiye sidkahan jeclaa iyo halaan sir ugu yeeraaye, anigoo sulluqan baan biyaha gacanta saaraaye. waxaan siiyaba markuu sabarku weynaado ee ay sakaarka iyo keliyaha suunka kala jiido saraan ugu baxaa oo rakaad kala sunneeyaaye. biyodiidka siiryada qabaan sid ugu laamaaye, waa soose qaankan inuu sayrma tiriyaaye, goortaan sugaabuu qalbigu sahasho gooyaaye soo mayro kii fulinayaan sawd u celiyaaye, aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeedii. sidaas awgeed weriyaha waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raalligeliyo. taas ayaana ila dhaanta tii sii ahayd arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu ka biyo diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raalligeliyo. maxaa yeelay diidista iyo biyodiidista ayaa culus, iyada ayuunbayna weedhu ku fiicnay. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.